لله وإنا إليه راجعون waxaan kaalmo ku sugaynaa ilaahay weynaayo oo boqorka ah awalna asagana siiyey haddana asagana sii doona insha Allah dabkani sida aad u jeediin saaka ayuu bilowday gurmad waa uga mahad celinaynaa gurmadka dan laakiin waxaan dareemaynaa in ay jirto gaabiskaas insha Allah kulli dib loo haabay doona annaga waxaan nahay ganacsatadii hantidan ay ka baaba'day dan waxa intaas dheer jidadkii oo jiingada laga dhisaayo oo dhulkii wada xiran yahay iyo qolada korontada oo la rabo in si qaabaysan gobolka Banaadir loogu habeeyo si markii gurmadka la aado aan fiilooyinka kore hadda wiishkaas meesha taagan wuxuu korka aadi waayay waa fiilooyinkaas kor ku taxan marka waxaan codsanaynaa dawladda inay macnaha la siiyo si boorta in la siiyo ganacsiga iyo dib kastoo yimaado in laga faa'iideysto waa ku mahadsan yahay gudoomiyaha degmada oo aad noola shaqeeyay iyo intii kale soo gurmatay waa mahad celinaynaa waxaan leenahay si aysan u soo laaban hal laga qaado tallaabo sharciya dadkii ka dambeeyay dabkan ayaan waxaan codsanaynaa in la hor keeno maxkamadda xaq u leh gartaas qaato in sharciga la hor keena rabnaa maalin walba dabkaas ama koronto ka kaca ama dad wax magarad ka kaca hadda korontowna ka kacay dabkaasi marka waxaan rabnaa in dadkii ficilkaas geystay oo dabkiisa kaliya ka shaqaysanaya in macnaha wax qabad sax loola yimaado oo wax laga qabto oo aysan noqon maalin walba sidii ay ahaa jirtay waa gubatay haddana hal la bilaabo waxaan codsanaynaa in nabadgelyada si sax ah oo dhab looga shaqeeyo oo ganacsiga waa tiirarka ay dawladdu ku taagan tahay waxaan rabnaa in si sax ah loola shaqeeyo loogu hagar baxo waxa annaga qaybo kamid ah gacmaheena ayaan isku duminaynaa waa in gacmaheena si gacan bira lagu qabtaa oo wadada haddaysan furmin wax gurmad lama samayn karo hadda saaka meel biyo lagu mido ma lahan wadda la soo maro male wiishkaas hadda horteena taagan fiilooyinkaas hadda hortiisa taagan oo ka gudbi waayey marka waxaan codsanaynaa si naxariis leh in ganacsiga wax loogu qabto si guud iyo si gaar ahaanba. Mahadsanid. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.